والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قانتي waxaan fadhinaa caasimada dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb. waxaan meeshaan fadhiyay waa beelaha 12 beelood kamid ah beesha Sacad qaasaan ugu jira wareer Sacad. waxaan rabnaa inaan meeshaan ka cambaarayno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya maantay arrintii ka soo baxday ee in lagu soo celinayo saxayaashii 2015 ee wateen siyaasiyiinta rabay inay ku boobaan xelalka xildhibaanada. waxaan leenahay arrintaas inaan mehedi kala qaybsanaantii ama saxiixii la kala boobay wuxuu sababay burburkii cid waliba ay xog ka hayso goobjoog ka ahayd dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre ra'iisul wasaare waxay bahda saxaafadda u sheegeen ama bulshada reer Soomaaliya ama Galmudug u sheegeen Galmudug loo dhan yahay in la dhisi doono. taasi waxay ka fogtahay wixii ay maanta sheegeen guddiga farsamada oo ah wixii shalay ay ku burburtay Galmudug muddo lagu laabanay. beesha meeshaan fadhisa ee uu ku jiray waxay qayb ka tahay beelaha Galmudug wax ka dhistay garab taagan muddo u fadhiyay Dhuusamareeb siday u qaadi lahayd. galabtay waxay meeshaan ka sheegaysaa haddii sida guddigu wax u sheegeen oo ah in saxiixayaashii hore ee boobka ku yimid ee siyaasiyiin dalhi ay keeneen dib loo soo celiyo inaysan aqbali doonin lana shaqayn doonin wixii ka yimaadana mas'uuliyaddeeda ciddii arrintaa qabatay ay dusha urinayso. waxay kaloo meesha ka caddaynaysaa in baaqii ay beesha 12 beelood u direen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inuu meesha ka baxay oo aysan ka imaan doonin Galmudug loo dhan yahay. sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga farsamada in la saxo qaladaadka meesha ka jira khaasatan beesha Sacad oo hadda ka hor beel ka mid ay waraaqana geeyeen social media ka sheegeen si lamid ah waxaan leenahay hal la saxo qaladaadka meesha ka jira yaa la dhayilsan dadka wax ku oolka oo deegaanka iyo dowladnimada meesha u fadhiya. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. waxaan ka hadlayaa wixii aan maqlayseen dadka meesha jooga anaa u dhalin weyn haddaan ugu dhalin weynahana dadka maanta wax allaale halkan ay yiraahdeen waxa raali ku ahay weeye dadka meesha fadhiya waxay dad Galmudug dhisay weeye goobka keenay weeye dadka u muuqday niman boobayaala oo saxayaal sheegtay oo awr dacwada leedin keenay oo inta xafiisa taal waxa la cadeeyay maantay inaad tiraahdeen misana iyagii baan ku soo celinaynaa nimanka cadaan waxaana waan ka hadlaynaa waqtiyada ugu badan beesha Sacad haddaan nahay beesha ugu jira haddaan ka sii nahay nimanka cabaadahayay oo dadku ka maqnaa haddaan nahay way ka xiranku waxaan raggii hore ku darin baan ku darahayaa dowladda ma nabcin maamulkana ma nabcin waxaan codsanaynaa inaan naloo celin nimankii cadaadood oo saxiixayaasha ahaa baa hadda la soo celinayo la soo xiray taasaan codsanaynaa tolkay kuma darin waxaan codsanaynaa culamo iyo nabadoono iyo qiyaar baa halkan jooga beesha ugu jira weeye qoraalkeeda oo dhugdiin yimid xaq siiya oo ummadda Ilaahay oo kala xataa nafteeda xaq siiya oo waxaad nagu siisaan nin cadaada awal hore wax ku boobay inaan misan hadda naloo dhiibin haddaan nahay beesha ugu jira. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan halkan ka salaamayaa odayaasha dhaqanka culimadiinka dhalinyarada saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. salaan kadib waxaan halkan ka cadeynayaa anigoo ah beesha Sacad andoo aan beesha Sacad cawareere ugu jira waxaan halkan ka cadeynaynaa beeshaas ugu jira waxaan ka cadeynayaa wixii maanta ka soo baxay guddiga doorashooyinka oo ahaa waxaan ku soo celinaynaa saxayaashii hore oo cadaada oo awal cabashada aan gudbinay oo aan gaarsiinay wasiirka arrimaha gudaha
iyo haddii la ku leeyahay ra-iisul wasaaraha iyadaasoo haddii la ku leeyahay aan uga cabanaynin inaysan dadkaasi aysan metelin oo anagu beesha anagu aan nahay haddii la ku leeyahay aysan metelin waxaan haddii la ku leeyahay waxaa maanta ay yiraahdeen nimankii baan kusoo celinaynaa doorashooyinka cadaada waa cambaaraynaa mana aqbalayno wax alla ka soo baxa waana cambaaraynaa wax allaale wixii ka soo baxaa ma aqbalayno hadday dhacdo waa ka tegaynaa meeshaan waxaana tegaynaa meeshaan kadib magaalada gacdaan kadib baan tegaynaa dowladda halkaas lagu dhiso na gaarxeemo ka shaqayn doonto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horreysa waxaan salaamayaa odayaalka dhaqanka ee beesha sacad awreere ugu jira oo ku sugan magaalada dhuusamareeb innagoo ah odayaalkii dhaqanka kuwa maqan ganacsatada dhalinyarada bahda saxaafadda gabdhaha waxaan sheegaynaa shir jaraa'id oo aan ku qabanay maanta magaalada dhuusamareeb shirkaa jaraa'id oo ujeedadiisu u yahay bishii sagaalaad waxaan mamnuucnay oo aanu niri ma aqbalayno wixii cadaada lagu sameeyey 2015 maantana guddiga doorashadu waxay sheegeen inay barnaamijkii guddiga cadaado dadkii lagu dhisay nimanka xilalka gaarkaa doonaya iyo boobka dadkii saadaxay in ay yiraahdeen waa soo celinayna arrintaas waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa ururka igaad waxaan u sheegaynaa midowda africa waxaan u sheegaynaa labada nin ee Soomaaliya madaxda ka ah Farmaajo iyo Xasan iyo Cali Khayr waxaan u sheegaynaa barnaamijkii cadaalad hadii la soo celiyo dowladda lagu dhiso inaanan ka mid noqonin aqbalayn la shaqaynayn haddii dadka loo diido rabitaankiisa ma aqbalayno waxa ay wadaan guddiga doorashada barnaamijkaasay maanta sheegeen ee warbixinta ay dhiibeen waa cambaarayna waa kasoo horjeedna waa xaaraan wax ma aha waa dulmi waa waxaan horey u diidnay ma aqbalaynaa intaasaan ogeysiinaynaa dadkan